haddii aad rabto data Excel ku dhex taala inaad sort ku samayso ama aad u kala hormariso sida ay u kala horeeyaan ama ay u kala dambeeyaan kaliya waxaad right click ku siinaysaa mid ka mid ah cellska column-ka aad rabto inaad sortiga ku samayso kadibna optionada ku soo baxaya waxaad ka tagaysaa option-ka ay sort ku qoran tahay sort markaad dul tagto waxa ku soo baxaya optiono dhowr ah haddii aad rabto data inaad u kala hormariso sida ay u kala weyn yihiin waxaad dooranaysaa ama aad kali ku siinaysaa sort Z to A kadibna rows waxay u kala hormarayaan sida column-ka aad sortiga ku samaysay datadiisa ay u kala weyn yihiin oo aan ula jeedo haddii column-kaasi datada ku jirta ay tahay tiro wuxuu u kala hormarinayaa sida tirooyinka ay u kala weyn yihiin haddii column-kaasi datada ku jirta ay tahay qoraal wuxuu u kala hormarinayaa xuruufaha sida ay u kala dambeeyaan haddii aad rabto inaad datada u kala hormariso sida ay u kala horeeyaan ama ay u kala yar yihiin sidoo kale column-ka aad rabto inaad sortiga ku samayso ayaad right click ku siinaysaa kadibna option-ka sort ay ku qoran tahay ayaad dul tagaysaa kadibna waxaad dooranaysaa sort A to Z markaad kali ku siiso waxaad arkaysaa inuu datada u kala hormariyay sida column-ka aad sortiga ku samaysay ay datadiisa u kala horeyso ama ay u kala yar tahay sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato haddii cellka aad right click ku siisay datada ku jirta ay tahay tiro ama number meesha ay sort Z to A ka tahay waxay isku bedelaysaa ama ay noqonaysaa sort largest to smallest halka ay sort A to Z ka ahaydna waxay noqonaysaa sort smallest to largest